boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee gorgor gaar ahaan ururka 6aad ee guutada 18aad ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu soo xoojiyay howlgallada argagixisada looga sifeynaya deegaanada Galmudug kuwaasi oo fariisimahooda duleedka Dhuusamareeb maanta loogu geeyay xoolo nool oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka ayna ku deeqeen madaxda sare ee Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye deeqdan oo taliska gorgor ee Dhuusamareeb ku sugan ku wareejiyay gudoomiyaha caasimadda Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayuu sheegay inay bilow u tahay sida shacabka iyo madaxda Galmudug ay kaga go'an tahay si wadista dabargoynta argagixisada gudaha iyo calooshoodu shaqaystayaasha garabka u ah ee ku bahoobay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed waxaan kaloo idinkugu imid salaan aan ka wado madaxweynaha Galmudug iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shacabka reer Galmudug gaar ahaan kuwa degan caasimadda waxaan rabaa maadaama aad tihiin ciidan cusub oo aad timaadeen waqti dhow halkaan waxaan idinkugu imid anigoo intaas aan soo sheegay ka wakiil ah horta inaan idinku soo dhaweeyo caasimadda iyo meeshan magaalada ah waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed waxaad u dhaarateen qaranka waxaad qalabka u wadaan qaranka inaad difaacdaan waxaan rabaa inaan idin sheego dad idin jecel walaalihiin ah hooyo iyo aabba idin ah iyo gurigiinna inaad timaadeen aad u dhaarateen Dhamme Cabdinaasir Bile taliyaha ururka 6aad ee gorgor ayaa ka mahadnaqay deeqdan isagoo rajo wacan ka muujiyay in ciidamadan waajibaadka loo igmaday ay sii wadi doonaan isagoo shacabkana uga mahadnaqay sida ay u garab taagan yihiin ciidanka waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badan ee aad noo sameeysan waxaan u imaanay magaalo ciidanka jecel dadka jecel in wanaaga jecel gudoomiye mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay soo dhawaaw ciidankana kulay waa ciidan aad u fiican disciplinkooda wanaagsan wax walba aan kala dardaarmanay deegaankan iyo dadkiisa inay difaacaan u dhaartay waajibaadkii loo igmaday qaranka u igmaday taliska xoogga dalka Soomaaliyeed u igmaday si leeqaana inay uga soo baxaan waa ciidan ay ka go'an tahay in degmadan deegaanka maalinta aan ka tageen ayadoo loo faraxsan yahay aad iyo aad loogu qanacsan yahay inaan ka tagno markii waajibaadkeena oo dhamaado gudoomiye ku soo dhawaaw ugu dambeyn abaanduulaha guutada 18aad ee gorgor gaashaanle Maxamed Carab ayaa ku soo gunaanaday hadalka in ciidamadan loo keenay Galmudug ka shaqeynta danta qaranka iyo gudashada waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada shacabka oo uu muujiyay in ay ku dhiiran doonaan taageerada uga imaanaysa madaxda iyo shacabka reer Galmudug waxaan rabaa in aan dhamaantiin idinku wargaliyo gudoomiyaha uu soo booqday wuxuu noo wadaa hadiyad yar oo xoolo ah ciidanka in loo xoolo qalo ay maanta hilbeestaan gudoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo degmada Dhuusamareeb odayaasha iyo dhaqanka iyo dadka dhalinyarada deegaanka ka soo jeeda dhamaantiina waa idinka gudoonay xoolihii iyo maamulka dawlad goboleedka Galmudugba ciidankan ku hortaagan gudoomiye waa ciidan qaran oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 18aad ururkeeda 6aad waxaan aaminsanahay deegaankan ay maanta yimaadeen qaarkood inaysan u dhalan deegaan kale ay ka yimaadeen laakiin ay isku keentay danta qaranka waxaan filaa insha Allah soo taliye ururku sheegay maalinta waqti bay noqon doontaa maalinta ciidankan halkan laga bedelo ilaan ciidanku meel ma wada joogi doono marba meel loo bedelay laga bedeli doono dadka deegaanka oo dhahayo maamulkii degmada iyo maamulkii dawlad goboleedka Galmudug oo dhahayo Allah ilaah ciidankeena laga bedelay ciidan wanaagsan ay ahaayeen inaan ka tagna rajeynayna insha Allah marka waxaan idin rajeynayaa guul insha Allah gudoomiye aan ku soo dhaweynayna waana mahadsan tahay adiga iyo maamulkaaga iyo maamul goboleedka Galmudugna xoolihii aan noo wadeen geeli ahaa waa idinka gudoonay insha Allah ciidamada gorgor ee kumaandooska xoogga dalka ayaa muddaba ku sugnaa deegaanada Galmudug oo ay dhowr jeer uga qayb galeen dagaallo culus oo lagula galay argagixisada gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaase iminka isbedel lagu sameeyay ciidamadii hore u joogay iyo taliskii shaqeynayay si loo dardargeliyo hawshaasi Cabdullaahi Warsamo Rooble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb